dowladda Puntland ee Soomaaliya waxay si dhow ula socotay markab siday hub iyo gaadiid dagaal oo bisha 24keedii January 2015 ku soo xirtay marsada magaalada Berbera. markabkaas oo maamulka Somaliland uu shaaciyay inuu yahay markab hub iyo gaadiid dagaal sida oo si qaldan ugu soo xirtay dekedda Berbera isagoo aan wax ogolaansho ah ka haysan Somaliland. dowladda Puntland ee Soomaaliya waxay adduunka u sheegaysaa in maamulka Hargeysa uu marin habaabinayo indhaha caalamka isla markaasna hubka iyo gaadiidka saaran markabkaas uu si dhammaystiran u galay gudaha Somaliland. haddaba hubkaas uu ku jiro gacanta maamulkaas hubkaas wuxuu ku jiraa gacanta maamulkaas isla markaasna hubkaas wuxuu xadgudub ku yahay cunaqabatayntii hubka saarnayd ee Soomaaliya. haddaba dowladda Puntland ee Soomaaliya waxay ku wargelinaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha dariska ah iyo beesha caalamkaba in hubka ka degay Somaliland uu khatar ku yahay ammaanka guud ee Soomaaliya. isla markaasna dowladda Puntland waxay ka digaysaa colaado hor leh oo uu sababi karo hubka dhumaalaysiga ah ee laga dejiyay dekedda Berbera. ugu dambeyntii dowladda Puntland ee Soomaaliya waxay horey u sheegtay iyo marar badanba in maamulka Somaliland uu xiriir dhow la leeyahay ururada xag jirka ah ee shacabka Soomaaliyeed dhibaateeya ku haya gaar ahaanna ururka Al-Shabaab. sidaas darteed waxaa dowladda Puntland ka digaysaa in hubkaas uu gacanta u galo ururka Al-Shabaab gaar ahaanna kooxda ku dhumaalaysanaysa buuraleyda galgala ee Puntland. wabillahi tawfiiq. wasiir Cumar Maxamed Soomaali Universal TV markabka iminka ka hadlayso ugu soo xigtay dadka magaalada Berbera ee maamulka Somaliland mas'uuliyiin Soomaaliya waxay sheegeen markabka inuu soo xigtay Puntland maxaad ku cadeynaysaa hubkaasi iyo gaadiidka dagaalka ay saaran ay Somaliland leedahay? markabka uma uu socon Puntland haddii Puntland u socday Puntland marsooyin bay leedahay ku soo xirtaan isla markaa markabka meeshuu ku soo xirtay waxaa laga rabaa haddii qalad lagu arko dadkii saarnaa kabtankii saarnaa oo transshipkii iyo meeshuu ka soo raray hubkaan iyo meeluhu soo maray markabku wuxuu ahaa markab iyaga dhumaalshaal ugu yimid oo hubka u saarnaa iyaga shabaab baana wadaaga dekedaana laga dejiyey oo dhulku yaallaa hadda waxaana waa hub tiro badan oo hubab waxaa ku jira shabaab lagu yaqaan qaraxya waxaa ku jira maskara face wajiga lagu qaato oo ah la yiraahdo mask face waxaa ku jira muxuu ahayto waxyaabo tiro badan ee aan dawladuhu isticmaaleen ee lagu yaqaan argagixisada. marka hubkaas iyo meeshuu yimid baa markhaanti ah waa markhaanti ma doonto. maxay tahay marka cadeynta dhabta ee muujinaysa Somaliland iyo Al-Shabaab ay xiriir leeyihiin? cadeynta dhabta marar badan baan muujinay mana aha wax qarsoon. magaalooyinkay ku nool yihiin iyagii xaasaskooda iyagaa jooga heshiisay galeen marar hore way soo kaxeeyaan way soo galbiyaan hubay siiyaan waana wax caam ku ah. haddaad tagtay magaalooyinka maalan kamid ah Somaliland qaar kamid ah waxaa ku jaalala xarumo waaweyn oo lagu tababaro shabaabka dabeedna buurtay geeyaan. hadeer ugu dambeysay buurta waxaa la geeyay ciidan iyo hub uu xirsi waday oo ah chief of cabinet-ka madaxtooyada wasiir madaxtooyada mana aha wax qarsoon.